You speak to me as if... In 2017 mid ka mid ah dalalka ugu afgembiga badan dunida, dal aanay siyaasadiisu fadhiyin, dal khayraadkiisu u horseeday xaalado jahawareer ah, dal hadalhayntiisu mar walba taagan tahay, dhul hodan ah, haddana dadkiisu ka hooseeyaan xariiqda fakhriga, dal soo saaray hogaamiyeyaal aanay jeclayn reer galbeedku, dal soo maray marxalado adag oo siyaasadeed, dal aan lahayn bad balse haysta kaydka dahab ee ugu weyn dunida. inkastoo uu dalkani la kulmay caqabado dhaqaale iyo amni, haddana weli waa dal mudan in la barto, la booqdo, lagana faa'iidaysto xigmadiisa qarsoon. waxaynu diiradda saari doonaa dalka Burkina Faso si aynu u ogaano bogaggiisa taariikheed ee la yaabka leh. dalka Burkina Faso wuxuu ku yaalaa bartamaha galbeed ee qaaradda Afrika. Burkina Faso waxay xuduud la leedahay 6 waddan oo kala ah: Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana iyo Ivory Coast. dalkani ma leh bad, waxaana ku hareeraysan waddamo kale, waana mid ka mid ah 16 waddan Afrikaanka ah ee aan lahayn badda ama landlocked ah. Burkina Faso waxay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska 5 August 1960. xilligaasoo magaceedu ahaa Aberfold. sanadkii 1964 halgamaagii Thomas Sankara ayaa magacii ka bedelay dalkaas, waxaana u bixiyey Burkina Faso, oo macnaheedu yahay dhulka dadka daacadda ah. dhulka Burkina Faso cabirkiisa waxaa lagu qiyaasaa 274,200 kilomitir square. baaxad ahaan Burkina Faso waxay leegtahay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. sidoo kale marka cabir ahaan loo eego, Burkina Faso waxay 2 jeer ka weyn tahay Somaliland. dadka ku nool Burkina Faso waxay haatan gaarayaan in ka badan 23 milyan oo qof. waa dal ay ku badan yihiin dhalinyaradu, iyadoo oo celcelis ahaan da'da dadka dalkaasi ay tahay 18 jir. caasimadda Burkina Faso waa Ouagadougou, oo ah magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha badan iyo xarunta siyaasadda iyo dhaqanka dalka. sidoo kale Burkina Faso waxay leedahay magaalooyin kale oo muhiim ah sida Bobo Dioulasso oo caan ku ah muusiga, suugaanta iyo dhaqanka. Bobo Dioulasso waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas. magaaladani waxay kaalin weyn ka qaadataa kobaca dhaqaalaha dalkaas. Burkina Faso waxay leedahay shakhsiyaad dunida ka caan baxay, waxaana ka mid ah in dalkaas looga yaqaanay halyey marle arag ah, kaasoo ah Thomas Sankara. haddaba Thomas Sankara waxa uu ahaa madaxweynihii shanaad ee Burkina Faso, kaasoo xilka kula wareegay afgembi sanadkii 1983. Thomas Sankara waxa uu ahaa hogaamiye da'yar oo ka caanwade ah, kaasoo horseeday isbeddello waaweyn oo dalkaas ka dhacay. sidoo kale wuxuu isbeddello waaweyn ku sameeyey waxbarashada iyo caafimaadka oo ka dhigay qaar bilaash ah. Thomas Sankara waxa uu dagaal adag la galay musuqmaasuq. sidoo kale wuxuu xoogga saaray horumarinta xuquuqda haweenka iyo dhiirigelinta dadka dalkaas si uu dalkaasi u gaadho isku filaansho dhinac walba. Thomas Sankara wuxuu magacii ka bedelay dalkiisa, kaasoo hore loo odhan jiray Aberfold, waxaana uu bixiyey dalkaas magac cusub kaasoo ah Burkina Faso, oo macnihiisu yahay dhulka dadka daacadda ah. waxa uu sidoo kale si cad uga soo horjeestay deynta caalamiga iyo faragelinta shisheeyaha. nasiib darro 15 Oktoobar 1987 waxaa lagu dilay afgembi uu horkacayay saaxiibkiis oo la odhan jiray Blaise Compaoré. maanta Thomas Sankara waxa uu taagan yahay astaan geesinimo, madax bannaani iyo halgan. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Burkina Faso waa Ibrahim Traoré, waxaana xukunka la wareegay 2022 isagoo ballan qaaday inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa iyo kooxaha hubaysan ee khalkhalgelinta ka wada dalka. Ibrahim Traoré waa hogaamiye aad u da'yar marka loo eego madaxda kale ee caalamka, waana astaan muujinaysa jiil cusub oo rabitaankoodu yahay isbeddel. dadka reer Burkina Faso waxay aad ula dhacsan yihiin madaxweynaha hadda xilka haya ee Ibrahim Traoré, kaasoo gebi ahaanba dalkaas ka ceyriyey ciidamadii Faransiiska, kuwaasoo la aaminsan yahay inay qayb ka yihiin afgambiyada soo noqnoqday ee dalkaas ka dhaca. calan kasta iyo astaan walba oo ummad leedahay waxay xambaarsiin macno iyo ujeedooyin gaar ah. midabada calamada caalamka iyo qaab dhismeedka astaanta qaran leeyahay waxay ka turjumaysaa
taariikhda, dhaqanka, diinta, halganka iyo riyooyinka ummaddaas leedahay. Haddaba waxaynu eegi doonaa ujeedooyinka ka dambeeya midabada calanka Burkina Faso. Calanka Burkina Faso wuxuu ka kooban yahay laba midab oo kala ah casaan iyo cagaar, waxaana dhexda kaga taala xidig dahabi ah. casaanku wuxuu astaan u yahay dhiiggii loo huray ee lagu helay xorriyadda dalkaas. cagaarkuna wuxuu muujinayaa barwaaqada iyo horumarka la rajaynayo dalkaas. sidoo kale xidigta dahabiga waxay astaan u tahay midnimada ummadda Burkina Faso iyo rajada mustaqbalka dalkaas. dhaqaalaha Burkina Faso wuxuu aad ugu tiirsan yahay beeraha iyo macdanta, gaar ahaan soo saarista dahabka. Burkina Faso waxay ka mid tahay wadamada ugu dahab soo saarista badan Afrika. dalkan wuxuu sidoo kale kobcinayaa dhaqaalihiisa iyadoo loo mariyo horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo iyo ganacsiga xoolaha nool. GDP-ga dalka Burkina Faso wuxuu gaarayaa qiyaastii 21 bilyan oo dollar marka loo eego miisaaniyad sanadeedkii 2024. inkasta oo GDP-ga dalkan hooseeyo marka la barbar dhigo dalalka kale, haddana kobaca dhaqaalaha ayaa u muuqda mid rajo leh. dakhliga sanadlaha ee celceliska qofka Burkina Faso ku nool waa qiyaastii 900 ilaa 1,000 dollar sanadkii. Tani waxay muujinaysaa in dalkani weli ku jiro dadaalo lagu doonayo kor u qaadida nolosha dadka. Burkina Faso waa dal hodan ku ah dhaqanka iyo dhulka dabiiciga ah, waxaana ku yaalla meelo dalxiis oo aad u soo jiidasho badan. Sinduu Peak, buuro si dabiici ah u samaysan kuna caan ah muuqaalkooda yaab kale iyo quruxda dabiiciga. Ruins of Lorraine waa dhismo qadiimi ah oo ah dhaxal dhaqameed caalami ah kuna yaalla koonfurta galbeed ee dalkaas. Nizani waa goob lagu ilaaliyo duurjoogta laguna arko xayawaano kala duwan oo Afrika u gaar ah. Ouagadougou iyo Bobo Dioulasso waa magaalooyin caan ku ah xafladaha dhaqanka, muusiga Afrikaanka iyo suuqyada farshaxanka. Burkina Faso waxay dalxiisayaasha ku soo jiidataa goobo dabiici ah oo aad u qurux badan. waxbarashada dalka Burkina Faso waa mid furan, laakiin waxay la daalaa-dhacaysaa caqabado dhaqaale. qiyaastii 40% dadka waaweyn ayaa wax akhriyi kara ama qori kara. dawladdu waxay xoogga saartaa kor u qaadida waxbarashada gaar ahaan dhanka carruurta. buurta ugu dheer ee Burkina Faso waa buurta Tinkuru. buurtaas waxay leedahay dherer dhan 747 mitir, waxaanay ku taallaa koonfurta galbeed ee dalkaas, halkaasoo uu maro xadka dalka Burkina Faso iyo Mali. webiga ugu dheer ee Burkina Faso waa Muhun River, oo sidoo kale loo yaqaano Black Volta. webigan wuxuu muhiim u yahay nolosha beeraleyda iyo tamarta dalka. webiga Muhun wuxuu qayb ka yahay 3 webi ee ugu waaweyn dalkaas, kuwaasoo la yiraahdo Black Volta, White Volta iyo Red Volta. Burkina Faso waa dal leh taariikh qani ah, dad geesiyaal ah iyo mustaqbal rajo leh. inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale iyo amni, haddana dalkan wuxuu leeyahay awood dabiici ah, dad dadaal badan iyo hogaamiyayaal hiigsanaya horumar waara. haddaba haddii aad jeclaan lahayd inaad si qoto dheer sahamin ugu samayso qaaradda Afrika, ha moogaanin Burkina Faso dhulka dadka daacadda ah